shir guddoonka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland og xogayaha guud ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ujeedo soo jeedinta mashruuca sharciga xafiiska imtixaanaadka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane guddoomiye annagoo ah mudanayaasha ku saxeexan qoraalkan ama mooshinkan waxaan soo jeedinaynaa mashruuca sharciga aasaaska xafiiska imtixaanaadka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo muhiimad ballaaran u leh guud ahaan qaranka mooshinkan sharci oo nuxurkiisu yahay curin xeer cusub waxa uu waafaqsan yahay qodobada dastuurka ee 47aad xarafka ta qodobka 122aad iyo qodobada 24aad farqadihiisa koowaad iyo 8aad iyo qodobka 43aad farqadiisa 3aad xarafka ta ee xorosaadka golaha wakiilada xeer lambar 01 2021 markaanu darisnay qodobka 47aad ee dastuurka qaranka oo awood u siinaya mudanayaasha golaha wakiiladu inay tirada xeerosaadku sheegayo ku soo jeedin karaan curin xeer cusub markaanu ogaanay khilaafaadka xeer ee saameeyay shaqada xafiiska imtixaanaadka qaranka oo ah hay'ad muhiim ah markaanu darisnay wareegtadii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee sumadeedu ahayd XM/WM www/240/245/0122 kuna taariikhsanayd 31 bishii koowaad ee 2022 ujeedadeeduna ahayd madax bannaanida kharashka imtixaanaadka xafiiska imtixaanaadka qaranka mudane guddoomiye annagoo maanka ku hayna shaqada koowaad ee xildhibaanadu inay tahay dejinta xeerarka iyo dhamaystirka qabyooyinka xeer ee dalka waxaanu soo jeedinaynaa mooshinkan sharci ee xeerka xafiiska imtixaanaadka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ah xeer maamul oo qeexaya qaab dhismeedka iyo madax bannaanida xafiiska iyo guddida imtixaanaadka qaranka waa maatantii